tallaabada ugu horeysa qaada ma aha dawladda waxaas waa inuu horta nolosha duruuf jiray ka guuga oo gaariga bedela oo guriga bedela waxaas markuu soo bedelo ayuu carruurtu tagayaa iskuulka ku jiray waa inuu ka saaraa mid bareef oo qaaliya marka ogeeya horta nolosha hore waa albaabkeeda lahaa dhibaatooyinka haysta ka mid ah waa mucaarad waa waaqac jira cid ma aha gaar oo aan ka sheegaya ma jirto dawladda wuxuu ku oranayaa kacaba sheekaysta markii xagga siyaasadda galaya dawladda wuxuu oranayaa dalku maanta badbaado u baahan koo jirin maanta maalin ay ka halis badan tahay ma jirto haddaan maanta la isu iman oo arrintaa aan meesha dib wax loo eegin halis bay ku jiraan qoliyihii sugaanta idinka dadka wuxuu sheegi jiray oo tilmaami jiray idinkana meel lagu istafiy intaan u jawaabi ku oranaya dama laakiin waxaa la qoranayaa xogaa la keli wada sida amsis isaga ku jawaabi waa ka tiriya kaas qolo muxaafida ku imanaysa wuxuu kaaga bilaabayaa isna maanta maalin ka wacan ma jirto wixii xukuumadda soo jiray qolada maanta hoggaanka haysa halkay gaarsiisay cid gaarsiisay ma jirto haddii abaarta ilaahay naga jiray abaartaas ay ugu daran wax kaloo inaga maqan markaasaad ku oranaysaa waniyo gaaya joornaalada iyo tiifiyada iyo waa la dhaliilayaasha ku jira sida maciyaalka buufiinta kala dhashay aan waxba ogeyne iyo facebookyada iyo waxaas adag wadani way ku goodi waxa ay waxaan soo maray inaad garanay maanta nimcayna ku jira habeenka dawladda tiifiga shaqaysa كان يروح فديا يمكن كل هذا دلك وهلس بكتير معارض هاي شر شرائط قبانية وعليا حزبية معارض رجع وحكاها أساسا نروح أنا جاي قدوميها يلا ما نروح كلها يا كل نروح أساسا حزبها ما أنت دبلت يوم كلها بقى أركتان أنا جا أساسا من إيجا حوجة قال سري ما تشيله حزبية معارض ما كان يلا يستعدان أنا بريموي إيه وتشيله ما بيفهموا وين إيه أنا كرشك هناي وحنا لا نقط إن أنا ضل خيار الخوف قبنا وحكومات كم نقولنا وركب عدالة وأجري سبب حكومات الهنود كأي أنا ضل خوف قبنا تبعنا عبارة نخلق طبعا سأقول لكم يا بكي عنو إذا تشكل أبد نبتي للمدرسة تلفون ونسا وارتي فيك مدعوة نسا وسكون يا ها ونك كل شيء شركة كهذا يبرر بالعين كسكون يا مية وهبة وحس بجيمي وكبح معارك وكسكون عناني يكون يضخ مية كمان صوتي الله يهرب رياش يستور بروجين ويصيرونه لقى دقيقة قالوا وهم يضرب صوت بك حاجة روحه هبي كده بس يلا كيف محافظ كامل سنة هاجن إسناء وحكا بلاوية إن بلا ما نروح قرينا وأنا وجلك أفكي غوغتهم هذا الشيء إن بلا ما نروح وتورين وحنس اللي حبض بيت يقع عند الله وحي هذا الشعب ووحى أكسين على الشيكتان ويخلط هذا ناس لكن ما كوحنا وجان إن ناس أمس كرموا تقول مال خطرة وكسبية أنا بصدوق وأنا وأنت أصلا مسمعني وما تطلق ربنا يباهن وحيبقى أنت اللي سوي ماد أو ذلك اللي بدبادية ما كده ما واحد وانيسا كان له محافظ كهاي مكانه وحنا قرين ماي ما يربح حنش يقول لك سريع ماشي بس ولا صوته كان معارض كان ماشي كل شيء بقول غير كذا وخير تبارك دير سوا كله طبعا أنا ودو قربا يحكي شهادة يحسدها شركة اللي هي اللي وحنا اللي يجوا مركو هورانا تستمر يوم مبادئ ما تشيريني ماشي نقول بدنا نقول كل شيء مركي بنتي ماشي كبحة أيوم لنا حاجة معاك كوسة يا بدنا محافظ كتير مركي هذا يقول لا ما نعرف ولا شريسة لأنه محي لي من بيكو جيلي يمه محي هذا مو باهنا مو باهنا بس عجيب عشتور وحفل يحل عمر بن الخطاب لا يحيي ayaa gudi buu diray amiirkii baa gudi diray wuxuu gobolka noocaasa bal dadka masaakiinta ku nool liiskooda ee keenay gudidii baa gobolka tagtay dadkii bay ku yiraahdeen dadka idinku jira sanadii ka garanayeen liis soo liskaray gudidii liiskii loo keenay qofkii ugu horreeyay wuxuu ahaa bara saabkii gobolka iyo qoyskiisa dadka gudidii waxay yiraahdeen magacani miyaan ahayn bara saabkii gobolka waxa la waa isagoo isaga noogu baahi badan oo afar habeen ama shan habeen gurigiisa dab laga mashqo xasabay barasaakii gobolka ba haystay inuu noqdo qofka faqarada ugu lambarwansan waa qof iyo Allah meel ku socdo oo ku samhaya meesha ku socdo inagana marka xilka la magacaabo qofka loo magacaabo talaabada ugu horeysa qaada ma aha dawladda waxaas waa inuu horta nolosha duruuf jiray ka guuga وقاريك بدلا وقولك بدلا وحصل منك سوى بدلوا أيوة عرفتوا تجا سكول في كل شيء وأنا بس أرابط بريف وقالي مرحبا أوكي وتناوشها هو الباب كذا الله
dhibaatooyinkan haystay ka mid tahay